waxaa farxad noo ah maanta inaan kala qayb galno munaasabada soo dhaweynta ardayda cusub ee sanadka. waxaan awalan u mahadcelinaa dadka soo qaban qaadiyay gaar ahaan madaxda kuliyadaha, gudoomiyayaasha kuliyadaha hadda shan ka mid ah ee idinla hadlay ayagoo matalaya college walba. jaamacaddu waxay ka kooban tahay 5 college, marka college kasta waxaa laga yaabaa inay dhowr program hoos joogaan. haddana markii loo yimaado kalimaadka waxaan arkaya in 5 xubnood oo kala duwan ay mataleen, laakiin waxaa baran doontaan inta ka joogta gudoomiyayaasha marka u dambeyso oo qof magacyadooda ugu yaraan inta lasoo isaajiyo si ay u caawiyaan ardayga cusub iyo wuxuu u baahan yahay. gudoomiyayaashan iskamayna imaan si sahlan uma imaan, waxay ku yimaadeen doorasho adag oo runtii wax yar ka yaray si xaalana ka dhacaysay. waqti badan ay geliyeen ardayda, maxaa la yidhaahdaa, waxayna mar dhow insha allah aad nasiib u yeelatay inaad goobjoog ka ahaataan doorashada madaxweynaha oo ardayda iyo ku-xigeenkiisa ama gudoomiyaha ardayda iyo ku-xigeenkiisa oo qayb aad ka tihiin codka loo codaynaayo. ma aha macnaheedu semester 1-ka kuma jiro dadka oo hawshaas qabanaya. insha allah arrintaas dhawaanay dhacaysaa. marka waa u mahadcelinaa gudoomiyayaasha halkan ka hadlay ardayda, madaxdii kale jaamacadda ee xafiisyada kala duwan ka socday iyo kuwa dhiman ee insha allah idin gaadgarayn doona. muhiimaddu waxaa waaye jaamacadda Plasma waa jaamacad ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn dalka Soomaaliya, haddana aad u ballaaran, jaamacadda ugu ballaaran markii la dhaho, maxaa yeelay dalkoo dhan ayay ku baahsan tahay, xarumo badan ay gobollada ku leedahay, kumanaan arday oo kala waxbarashada wada oo xarumahaas kala duwan ka wada. ujeedada yani jaamacadda slogankeeda haddaa aragteen educating the whole nation ama barbaariyaha bulshada oo idile meesha ku qoran, macnaheedu waxaa waaye jaamacaddu waxay gaaraysaa ardayga Soomaaliyeed meel kastuu joogo. yani waxay ku dadaalaysaa inay u geyso adeeg waxbarasho oo tayo leh, ama gobol ha joogo, degmo ha joogo, ama caasimadda ha joogo. adeegaasay rabtaa inay gaarsiiso. sidoo kale waxay rabtaa inay gaarto dad kala duwan oo duruufo kala duwan ku nool oo xaalado kala duwan ku jira. ardaydii hani ee hadashay gudoomiyaha kuliyadda social science-ka waxay sheegtay dadka qaar markay nala kaftamayaan erayga ay dhahaan oo ah fiildiga caafimaadka ee jaamacadda kusoo bilaabatay. run waaye, fiildiga caafimaadkana nambarka ugu badan oo dhigta inta badan, gaar ahaan kuliyadaha qaar waxaa laga yaabaa inay jirto. gudoomiyaha halkan waxaa jirta shalay aad loogu qoslisiisay oo tiri kuliyadda midwifery-ga waa. marka waxaa jira tartan sports jaamacadda qabato. waxay shalay marka nagu tiri waxaan rabaa inaan ogaano maadaama tartanka sports kuliyadihii kale dad badan u cayaarayaan, innaga xaalkeena maxaa laga yeelaa maadaama midwifery-ga yaa dhigta gabdho keliyaa dhigta kuliyadii. waa fahmaysaan soo maaha? marka gudoomiyaha way fadhisaa. si la mid ah marka kuliyado waxaa jira nambarka ay u badnaanayaan hablaha iyo kuwa ay u badnaanayaan industrial engineering-ka, beeraha, yani kuliyadaha kale social science-ka labadaba way u siman yihiin, number fiicana ka jooga. laakiin kuliyadaha caafimaadka number ahaan mar walba halkaasaa u badnaanaysa. waana sheegtay ceeb maahan gabadha Soomaaliyeed in wax la baro. hooyo Soomaaliyeed oo wax la baray maxaa la yidhi waa qoys ama bulsho, waa bulsho wax la baray. marka kaalintaasna inaad qaadataan insha allah waan rajeynayna. marka fiildiyo kala duwan ay jaamacadda bixisaa, takhasusaad kala duwan, laakiin kuliyadihiin aad soo doorateen college ayaa u fadhisaan mararka qaar. maxaa yeelay college-kaas information badan inaad ka heshay jaamacadda danaynaysaa. semesterka koowaad raalli ahaada semesterka koowaad waa semester adag, maxaa yeelay waa semester kala guur ah ku jirta, ama sanadka koowaad waa sanad aad ka timid waxbarasho aasaasi oo dugsi hoose dhexe sare ah, laakiin aa imaanaysid deegaan ka duwan oo ah heer jaamacadeed, waxbarasho jaamacadeed. waxyaabo badan oo challenges inaad kala kulantaa suuragala. gudiyada iyo dadka ardayda kale hore u dhiganaysa jaamacadda waxay diyaar u yihiin inay ku caawiyaan. insha allah madaxda xafiisyadana waxay ka caawinayaan adeegyada u baahnayd. jaamacadda waa jaamacad aad digital u ah, fariimaheeda ugu badanna aad ugu gudbisa habka digitalka ah, emailkaaga, whatsapp groupka ardaydaada, iyo habab kala duwan oo lagu soo gaaro si informationka u baahnayd u heshid. waxaa jira portal gaar u leedahay inaad booqateen aan rajayna oo wax kasta oo xog ah
oo u baahnayd hadday tahay imtixaan ama meel kale ama xafiis kale wax qoseeya ama timetable-ka ama macalinka all the information lagugu siiyey soo dhawow insha allah waxaan rabnaa inaad ka faa'iidaysatid fursadda berri arday kale aad soo dhaweynaysaa tobanaan kun oo qalin jabi ayaa xubin ka noqonaysaa marka ku soo dhawow waxaan kaa codsanaynaa markaad jaamacadda ku soo biirto inaad ka run sheegto sababtaa halkaan u timid inaad ka run sheegto waxbarashada waa hadalka ugu muhiimsan oo inta u timid bulshaad baranaysaa asxaabaa yeelanaysaa activity kala qabanaysaa laakiin kan ugu muhiimsan muxuu yahay waa waxbarasho marka waxbarashadaas waxaan rabnaa inaan ka run sheegno oo waqti gelino oo aan inta halkan aan joogno ogolaano inaan dhibtoonno shaqo naloo diro nala dhibo wax nala weydiiyo la yidhaha waxaan soo diyaari waxaan soo samey halkan markaad joogto haddaad dhibtooto waxaa ka baxaysaa adigoo aad u diyaarsan waayahay arrinta marka yani waxbarashada karunsheegeeda waxaan rajeynaa marar badan oo kala duwana inaan ku baraarujinay waxaan rabnaa waqti fiican inaad gelisid arrinta ku saabsan waxbarashada tiknolojiyadda ayaan kugu tababaraynaa waxaan rabnaa in la bedelo luuqadaadii waxaan rabnaa ardayga simisterka hadda koowaad soo galay markuu simisterka afaraad ka hor intuunan gaarin inuu awood u leeyahay luuqadda oo wax ku baranaayo inuu ku hadlo isagoo aan wax culaysa dareemayn waxaan rabnaa ardaygeena inuu yahay arday wax baaraayo wax raadinayo wax soo saari kara wax diyaarin kara wax isbari kara ismaamuli kara deegaano kala duwan ku noolaan kara berrito oo aan u baahnayn in gacanta laga qabto oo berri la geeyo jaamacad kale markuu waxbarasho ka doonanayo waxaan rabnaa markaad tababarka qaadatid inaad ummadda u faa'iidaysid yani una diyaargarowdid shaqada aad qabanaysa xirfadeedii saxda inaad qaadatid halka waxaan ku saabsan aad aragtaan yani guulaystayaasha ardayda يعني ardayda waxaa jira tartan loo qabto oo deeqda waxbarasho ay ku tartameen ay guulaystayaasha waxaa la siiyaa shahaadooyin rikoodkooda la xareeyaa arday kasta oo percentage-yada ka mida la siiyana waxaa jira rikood loo diiwaan geliyey waxaan rabnaa inaad ka faa'iidaysatid qaar badan oo Soomaali oo u baahan ayaanan helin fursadda heshay oo qaarkood goobjoog kula ahay oo kula socday oo kula tartamay waxaan rabnaa fursaddaas inaad ka faa'iidaysataan waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno munaasabado gaara oo si gaara loo sameeyana waa lidinku casuumi doonaa waan ognahay daraasada waa idin socotay laakiin xilligaan ay soo gaartay in la yidhaah soo dhawaada mar kale aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu